waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa dagaalkii ugu qasaaraha badnaa taariikhda aadamaha. saamayntiisu waxay gaartay dhammaan daafaha dunida, waxaana lagu qiyaasay inuu galaaftay dad gaaraya 80 ilaa 100 milyan oo qof. gaajo, cudurro, burbur iyo barakac lixaad leh oo aan hore dunidu u arag ayuu sababay. waxa uu ahaa dagaal la isku xoog sheegtay, hub kasta oo la heli karay ayaa la isku gumaaday, wuxuuna noqday dagaal dhalay isbeddel dhaqaale, siyaasad iyo awoodood oo dunida ka dhacay. waxaan ula jeednaa dagaalkii labaad ee adduunka oo falanqaynteenna maanta aan si qoto dheer ugu eegi doono qaabkii uu ku bilowday, sababihii ka dambeeyey bilowgiisa, iyo sidoo kale sida uu ku soo dhammaaday. dagaalkii labaad ee adduunka waxa uu ahaa dagaal weyn oo u dhexeeyey dowladihii awoodda badnaa, wuxuuna ka bilowday bartamaha Yurub. saamayntiisu waxay gaartay inta badan waddamada Yurub iyo guud ahaan waddamada Baasifiga, Bariga Aasiya, Maraykanka iyo Midowgii Sofiyeetka. dagaalkan sababtiisu wuxuu dib ugu laabanayaa saamayntii ka hadhay dagaalkii koowaad ee adduunka. sida aan hore ugu soo sheegnay muuqaalkeennii hore, dagaalkaas waxaa lagu jebiyey waddamadii ka tirsanaa Isbahaysigii Awoodaha dhexe Central Powers, kuwaas oo kala ahaa boqortooyadii Jarmalka, boqortooyadii Bulgaariya, dowladdii Cusmaaniyiinta iyo dalkii la isku odhan jiray Austria-Hungary. gacanta sare waxaa ku yeeshay Isbahaysigii Awoodaha Allied Powers oo ahaa taxaaluf iyo gaashaanbuur ay hogaaminayeen Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan iyo ugu dambayn Maraykanka oo ku soo biiray, taas oo markii dambe dunida saamayn weyn ku yeelatay. markii uu soo dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, dalal badan oo xulafo la ahaa dhinacyadii guulaystay ayaa ka mid noqday isbahaysiyo cusub. dhanka kale, kooxdii laga adkaaday ee loo yaqaanay Isbahaysiga Awoodaha dhexe waxaa soo gaaray khasaare aad u weyn. dhulal badan oo ay xukumi jireen ayaa laga qabsaday, ugu dambayntiina waxaa lagu qasbay inay saxiixaan heshiiskii Farsaay, kaas oo ka dhacay qasriga Farsaay ee duleedka magaalada Baariis. heshiiskaasi wuxuu hordhigay shuruudo aad u adag isbahaysigii la jebiyey, dalka Jarmalka oo ahaa laf-dhabarta awoodihii laga adkaaday. qodobada lagu qasbay waxaa ka mid ahaa in Jarmalka laga gooyo dhul baaxaddiisu leegtahay 65,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. in dalal badan oo hoos imaan jiray Jarmalka laga dhigo jamhuuriyado madax bannaan, in dhulalkii Jarmalku gumaysan jiray Afrika iyo Baasifiga loo qaybiyo quwadihii dagaalka ku guulaystay. in ciidanka Jarmalka mar ku sigtay in uu Yurub cagta mariyo lagu soo koobo 100,000 oo askari oo keliya, iyadoo laga mamnuucay in dib loo dhiso muddo 25 sano ah. ugu dambayn iyo midka ugu qaraar in Jarmalku bixiyo magdhow aad u culus oo lagu qiyaasay 50 bilyan oo ah lacagta maarka Jarmalka ah. lacagtaas oo maanta u dhiganta ku dhowaad 170 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. heshiiskii Farsaay wuxuu gudaha Jarmalka ka abuuray niyadjab iyo cadho aad u weyn. maqnaanshaha dhul aad u badan, lagu qiyaasay 13%, burburka dhaqaale iyo magdhowga culus ee dusha loo saaray ayaa keenay in shacabku ku kaco boqortooyadii dalkaas ka jirtay. waxaana Jarmalka ka dilaacay kooxo qowmiyadeed oo diidan nidaamka boqortooyada. ugu dambayn, kacdoonkaas wuxuu galaaftay maamulkii boqortooyada, dalka Jarmalkuna wuxuu isu beddelay jamhuuriyad. dagaalka kadib, koonfurta Yurub, gaar ahaan Talyaaniga, waxaa ka bilowday kooxo taageersan nidaam shuuci xagjir ah oo loo yaqaan faashisti. kooxahaasi, sida kuwii Jarmalka aan soo sheegnay, waxay aaminsanayeen fikir qowmiyadeed iyo in dowladdu faraha kala baxdo ku lug yeelashada arrimaha dibadda. duufaanta siyaasadda midigta fog oo dhinacyo badan ka karkaraysay ayaa keentay in shacabka Jarmalku ku kaco xukuumaddii cusbayd. dalka waxaa aad ugu faafay hogaamiye isbeddel doon ah, codkar ah, xamaasad badan oo fagaarayaasha ka muuqda, nin dhallinyaro ah oo aad ugu fogaaday nacaybka isbahaysigii jebiyey Jarmalka. ugu dambayntii, hogaamiyahaas wuxuu noqday Adolf Hitler, qofkii ugu weynaa ee sababta u noqday bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, waddamo badan oo xulafo la ahaa isbahaysiga guulaystay ayaa qayb ka noqday gashaanbuurta cusub. kooxdii lagu jebiyey dagaalka oo la odhan jiray Isbahaysiga Awoodaha dhexe waxaa soo gaaray khasaare aad u ballaaran. dhulal badan oo ay xukumi jireen ayaa laga qabsaday, ugu dambayna waxaa lagu qasbay inay saxiixaan heshiiskii Farsaay, kaas oo ka dhacay qasriga Farsaay ee duleedka magaalada Baariis. heshiiskaasi wuxuu hordhigay shuruudo aad u adag oo ka dhan ah Jarmalka oo ahaa awooddii hoggaanka u haysay isbahaysiga la jebiyey.
qodobada lagu qasbay waxaa ka mid ahaa in boqortooyadii Jarmalka dhulkeeda laga jaro 65,000 oo kiiloomitir oo isku weeran, in waddamo badan oo hoos iman jiray boqortooyada laga dhigo jamhuuriyado madax bannaan, in dhulalkii uu Jarmalku gumaysan jiray ee Afrika iyo Baasifiga loo kala qaybiyo awoodihii guulaystay, in ciidanka Jarmalka lagu soo koobo 100,000 oo askari dibna aan loo dhisin muddo 25 sano ah, in Jarmalku bixiyo magdhow aad u culus oo lagu xukumay qiyaastii 1 bilyan oo mark Jarmal ah, taas oo maanta u dhiganta ku dhowaad 170 bilyan oo dollar Maraykan ah. Heshiiskii Versailles waxa uu niyad jab weyn ka abuuray gudaha Jarmalka. Dhulkii 13% ayaa maqan, dhaqaalihii waddanka dagaalka ku burburay, iyo magdhow aad u culus oo dusha loo saaray ayaa sababay kacdoon shacab oo ka dhan ah boqortooyada. Waxaa Jarmalka ka dilaacay kooxo qowmiyadeed oo diidan nidaamka boqortooyada. Kacdoonkaasna wuxuu ugu dambayn galaaftay habmaamulka boqortooyada, Jarmalkuna wuxuu isu beddelay jamhuuriyad. Dagaalka kadib, koonfurta Yurub, gaar ahaan Talyaaniga, waxaa ka bilowday kooxo taageersan nidaam shuucinimo xagjir ah oo loo yaqaan faashisti. Kooxahaasi sida kuwii Jarmalka waxay aaminsanayeen fikir qowmiyadeed iyo in dawladdu faraha kala baxdo arrimaha bulshada. Ku lug yeelashada dawladda arrimaha dibadda iyo duufaanta siyaasadda midigta fog ayaa keentay in shacabka Jarmalku ku kaco xukuumaddii cusbayd. Dalka waxa uu aad ugu baahday hogaamiye isbedel doon ah, codkar ah, xamasad badan oo fagaarayaasha ka muuqda, nin dhalinyaro ah oo aad ugu fogaaday nacaybka isbahaysigii jebiyey Jarmalka. Ugu dambayntii, hogaamiyahaas wuxuu noqday Adolf Hitler, qofkii ugu weynaa ee sababta u noqday bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. Hitler wuxuu muujiyey damac aan qarsoodi ahayn, isagoo doonayay inuu dib u soo ceshado dhulalkii uu sheegay in dalka Jarmalka uu ka maqan yahay. Bishii Maarso ee sannadkii 1938, ciidankii Jarmalka ayaa xoog kula wareegay dalka Awstriya. Wuxuu sidoo kale la wareegay gobollo ka tirsanaa dalkii la oran jiray Czechoslovakia. Dhanka kale, dalka Talyaaniga ayaa isna weeraro ku bilaabay dalka Albaaniya iyo jasiiradaha Giriiga ee dhaca badda Mediteraneanka. Tani waxay keentay inay dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska dareemaan halista ku soo socota. Waxay miiska wada hadalka ugu yeereen dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka, waxaana lagu heshiiyey in la joojiyo duulaannada dhul ballaarsiga ah. Shuruuddii ugu adkayd waxay ahayd inaan Jarmalku weerar ku qaadin dalka Poland, oo ka mid ahaa dhulalkii uu xukumi jiray ka hor intaan lagu jebin Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Hitler ma aqbalin shuruudahaas. Waxa uuna ka carooday in mar kale Jarmalka lagu xadido heshiis ay garwadeen ka yihiin Ingiriiska iyo Faransiiska. Kadib 1dii bishii Sebtembar ee sannadkii 1939, Hitler ayaa duulaan aad u ballaaran ku qaaday dalka Poland. Toddobaad kadib wuxuu la wareegay inta badan dhulka dalkaas. Kooxihii wax iska caabinta ee Poland ayaa u tallaabay dhanka xuduudaha Midowga Sofiyeeti, halkaas oo ay dagaal cusub ka soo bilaabeen. Wakhtigan ayaa taariikhda lagu tilmaamaa inuu ahaa bilowgii rasmiga ahaa ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Midowga Sofiyeeti ayaa bilaabay abaabul uu kaga hortegayo khatarta ku soo socota, wuxuuna bilaabay inuu xuduudiisa dagaalka ka soo fogeeyo, isagoo qabsaday waddamo dhowr ah oo dhaca bariga Yurub si ay difaac koowaad ugu noqdaan. Jarmalkuna uu dagaalka ugu geeyo xuduudihiisa, waxaana halkaas ka qarxay dagaal weyn oo u dhexeeyey Jarmalka iyo Sofiyeetiga, kaas oo ka dhacay gudaha bariga Yurub. Hitler, isagoo wajahaya dagaallo dhinacyo badan leh oo uga imaanaya Midowga Sofiyeetka, wuxuu go'aansaday inuu furo furin kale oo dagaal. Wuxuu duulaanno isxiga ku qaaday dalalka Norway, Denmark iyo xeebaha dalka Sweden si uu ugala wareego wax soo saarka birta oo muhiim u ahaa dagaalka. Wuxuu sidoo kale duqayn xagga cirka ah ku bilaabay dalka Faransiiska oo xuduud kala lehaa Jarmalka dhinaca koonfureed iyo waddamo kale oo aan qayb ka ahayn Dagaalkii Koowaad sida dalalka Biljamka, Netherland iyo Luxembourg. Ujeeddadu ugu weyn waxay ahayd in gebi ahaanba la godoomiyo dalka Faransiiska iyo qaybaha kale ee Yurub. Wakhti yar kadib, dalka Talyaaniga ayaa dagaalka soo galay oo garabsanaya Jarmalka, wuxuuna duulaan dhulka ah ku qaaday Faransiiska. Kadibna ciidankii Jarmalka ayaa iyaguna weerar dhulka ah dhankooda ka soo qaaday. Dalka Faransiiska ayaana isku dhiibay 8 maalmood gudahood oo si guud loola wareegay dhulkiisa. Intaas kadib, Jarmalka iyo Talyaaniga waxay qorsheeyeen duulaan ay ku qabsanayaan dhulka boqortooyada Ingiriiska.
maadaama Ingiriisku uusan xuduud dhul ah la lahayn Yurub inteeda kale. Labada isbahaysi Jarmalka iyo Talyaaniga waxay go'aansadeen inay goodoomiyaan dekedaha Ingiriiska, isla markaana weerar cirka ah ku qaadaan magaalooyinka waaweyn aadna loo duqeeyo si ay u daciifiyaan awoodda Ingiriiska. Muddo 4 bilood ah ayuu Jarmalku habeen kasta duqaynayay Ingiriiska. Ciidanka difaaca cirka ee Ingiriiska oo aad u adkaa awgeed Jarmalku kuma guulaysan duqaymihii dhanka cirka ah. Si kastaba ha ahaatee, godoominta dekedaha ayaa dhibaato weyn ku keentay aadna looga gacan sareeyay Ingiriiska. Dalka Maraykanka oo ahaa suuqa ugu weyn ee uu Ingiriisku ka heli jiray hubka ayaa waayay meel uu u soo mariyo shixnadaha hubka ah. Sidaas darteed, Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay inuu dagaalka dhankiisa ka soo galayo si uu u difaacdo suuqa uu u iibgeeyo hubkiisa ee Yurub. Dhammaadkii sannadkii 1940 ayuu Maraykanku ku dhawaaqay inuu dagaalka ka soo galayo dhanka Yurub. Dhanka kale, dalka Jabaan iyo Maraykanka ayaa isku dhacyo adag ku dhex mareen xeebaha bariga Eeshiya. Ciidanka badda ee Jabaan ayaa isku dayay inay dhexda u galaan shixnado hub ah uu Maraykanku ku taageerayay xoogagga xoreynta dalka Shiinaha, kuwaas oo dagaal kula jiray Jabaan, oo qabsatay inta badan magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha. Jabaan iyo Maraykanka ayaa dhinaca Eeshiyana markooda is arkay. Halkaas waxaa ka bilowday in dagaal leesku hub doonto. Jabaan ayaana si toos ah ugu biirtay xulafadii Jarmalka iyo Talyaaniga. Maraykankuna wuxuu ciidankiisii badda u dhaqaajiyay dhanka xeebaha Ingiriiska iyo badweynta Baasifiga si uu difaac uga galo dalka Jabaan. Intii Ingiriisku ku jiray godoonka iyo duqaymaha Talyaaniga, wuxuu qaatay qorshe ah inuu duulaan ku qaado maxmiyadihii Ingiriiska ee Afrika iyo jasiiradaha dhaca Maraykanka. Waxa uu la wareegay jasiiradda Malta si uu gacanta ugu dhigo marin biyoodka Suways. Markuu Afrika bariga ka soo jeestay, Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa duulaan ku qaaday waddamada bariga Yurub sida Giriiga iyo Yugoslaafiya. Si fudud ayayna gacantooda ugu soo gashay inta badan Yurub. Xulafadii Hitler markii ay qabsadeen dalalka Yurub, waxay u soo bandhigeen Midowgii Sofiyeetka heshiis ah inuu ku soo biiro xulafadooda, maadaama uu ahaa awoodda keliya ee hortaagnayd Sofiyeetka oo markii horeba wajahay dagaalkii Jarmalka. Ayaa iska diiday inuu isbahaysi la noqdo Jarmalka. Arrintan ayaa aad ugu caraysiisay Hitler, waxaana si degdeg ah loo dejiyey qorshe weerar loogu qaado Sofiyeetka. 22 bishii Juun 1941 ayaa la qaaday weerarkii caanka ahaa ee Barbarossa. Dhul weynihii Sofiyeetka ayaa laga weeraray dhowr jiho si awooddooda loo kala dhantaalo. 2 bilood oo dagaal kulul ah kadib, xulafadii Jarmalka waxay u dhowaadeen Moscow. Ciidankii Ruushkana waa laga awood badiyey. Qorshaha Barbarossa oo ahaa mid degdeg lagu dejiyey ayaa guulo iyo horumar isku xigxigay kadib fashilmay, guul darana horseeday. Culayskiina wuxuu ka qaaday Ingiriiska. Fursaddaas ayayna boqortooyada Ingiriiska u oggolaatay inay la safato Sofiyeetka. Dhinaca Hindiya iyo Iiraan ayuu Ingiriisku dagaalka ka soo galay si uu u jaro marin biyoodka Hormuus oo sahaydu u mari jirtay xulafadii Jarmalka, Talyaaniga iyo Jabaan. Halkaasna waxaa ka bilowday jabkii ugu weynaa ee fashilinta weerarkii lagu qaaday Sofiyeetka. Ciidamadii badda Maraykanka ayaa sidoo kale dagaalka qayb ka noqday. Waxaa dib u soo noolaaday isbahaysigii Faransiiska iyo Ingiriiska. Dagaalka markaasna waxaa loo raray xeebaha waqooyiga Afrika iyo dhanka badda Miditeraaniyaanka. Ciidamadii Talyaaniga ayaa dib looga saaray Tunuusiya iyo Maalta, aad ayayna halkaas ugu jabeen ilaa markii dambena loo gudbo gudaha Talyaaniga. Xulafadu waxay si degdeg ah ugula wareegeen inta badan magaalooyinkii Talyaaniga, iyagoo dhisay xukuumad iyaga taageersan, kana soo horjeeda Mussolini. Kadibna qalalaase iyo dagaal sokeeye ayaa laga dhex abuuray Talyaaniga si awooddiisii meesha looga saaro. Markii la wiiqay awoodda Talyaaniga ayaa sidoo kale la kala jaray isku gurmadkii Jarmalka iyo Jabaan ee marinka Hormuus. Waxaa soo xoogaystay awoodda kooxda isbahaysiga oo ka koobnaa Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo sidoo kale Sofiyeetka oo gooni ka ahaa balse dagaalka ku jiray. Jarmalka ayaa xooggiisa isugu geeyey Sofiyeetka oo ahaa dhul weyn oo dalal badan ka kooban, halka awooddii Talyaaniga aad u wiiqantay, kuna qasabtay Hitler inuu culayska ku sii hayn waayo Faransiiska iyo Ingiriiska. Fursaddaas ayaana awood u siisay xulafadii inay Jarmalka ku jebiyaan Faransiiska iyo Giriiga. Sofiyeetka ayaa isaguna bariga Yurub ka soo galay dhanka Yugoslaafiya, wuxuuna markaas weerarka ku soo jeediyey Jarmalka. Sofiyeetku wuxuu qabsaday waddamada Booland iyo Hungari. Talyaanigana waa laga awood badiyey xukuumaddii ugu dambayn Mussolini, isagana waa la daldali. Sidaas ayaana lagu soo afjaray Talyaaniga.
Intaas kadib dagaalku waxaa ku haray Jarmal iyo Jabaan oo aan gurmad isku diri karin. Ciidamadii gaashaanbuurta ayaa Jarmalka ka soo weeraray dhinac walba, waxaana ciidamadii Jarmalka laga saaray dhammaan xuduudihii Sofiyeetka. Jab aad u darana waa loo geystay, heer la gaarsiiyey in guutooyin waaweyn la go'doomiyo, qaar kalena ay isdhiibaan. Ugu dambayn dagaalku wuxuu ku soo ururay xuduudda Jarmalka. Sofiyeetka ayaa ka soo galay dhanka bariga, halka xulafadii Maraykanka ay weerar ka soo qadeen dhanka galbeedka Jarmalka. Waxaa la go'doomiyo awooddii Hitler. Dagaallo adag kadib, ciidankii Jarmalka ayaa isdhiibay, iyagoo u adkaysan waayey guuldarrooyinka dhinac walba uga imaanayay iyo qorshihii dagaalka oo fashilmay. Ugu dambayn dhulkii Jarmalka oo dhan waxaa la wareegay xulafadii guulaysatay. Sofiyeetka ayaa qabsaday bariga Jarmalka, halka kooxda gaashaanbuurtuna ay qabsadeen galbeedka Jarmalka. Sidaas ayaana Jarmalka loogu kala qaybiyey laba qaybood oo midba gooni loo haysto. Hogaamiyihii Jarmalka ee Hitler, oo guuldarradii iyo caloolxumadii ka raacday u adkaysan waayey, ayaa ugu dambayn isdilay 30 bishii Afraad sannadkii 1945. Halkaasi ayayna ku soo afjarantay awooddii Jarmalka. Dagaalkuna markan wuxuu u jihaystay dhanka Eeshiya. Dalka Jabaan ayaa howlgallo aad u culus ku qaaday maxmiyadihii waddamada Yurub ee Aasiya si awoodda gurmadka meesha looga saaro. Waxa uu qabsaday Filibiin, Tayland, Koonfurta Hindiya iyo jasiirado kale oo ku yaala Badweynta Baasifiga iyo Badweynta Hindiya, kuwaasi oo muhiim u ahaa gurmadka maraakiibta dagaalka. Qorshe kasta oo uu Jabaan dejiyo, halista ugu weyn mar walba waxay ku ahayd Maraykanka, oo doonayay gacan ku haynta Baasifiga. Xulafadii gaashaanbuurta ayaa dejiyey qorshe dhowr dhinac looga weerarayo Jabaan, oo ahayd awoodda keliya ee harsan. Awoodsiinta kooxaha iska caabinta Shiinaha iyo burburinta maraakiibta dagaalka Jabaan ee dhanka Australia ayaa noqotay tallaabadii ugu horreysay ee guulaysatay. Waxaana Jabaan laga soo riixay dhammaan dhulkii Shiinaha. Sofiyeetka ayaa sidoo kale dagaalka ka soo galay dhanka Kuuriya. Jabaan ayaa lagu qasbay inay dhammaan ciidankeeda ka soo celiso waddamadii ay hore u qabsatay. Boqorkii Jabaan ayaa dejiyey istaraatiijiyad qariska tuur ah si uu culayska isaga qaado. Jabaan waxay duulaan ku qaaday Alaska iyo Hawaii oo ka tirsanaa dalka Maraykanka. Sirdoonka dagaalka ee Maraykanka CIA-da oo xogta sii ogaaday ayaa fashiliyey qorshahaas. Ugu dambayntii Maraykanka ayaa qaatay go'aan halaag ah si dhammaystirana loogu soo afjaro Jabaan. Waxa uu adeegsaday hub xilligaas adduunka naadir ku ahaa oo aan hore weligeed loo adeegsan. Magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee Jabaan ayaa maalmo isku xiga lagu dhuftay madaxyada nukliyeerka, kuwaasi oo geystay halaag aan hore loo arag. Labadaas weerar ayaa dhulka geliyey Jabaan, waxaana ku dhintay dad gaaraya 400,000 oo qof, kuwaas oo u geeriyooday saamaynta nukliyeerka ee aadka dhulka ugu daray labada magaalo oo ahaa kuwa aad u camirnaa. Ugu dambayntii sidaas ayay Jabaan isku dhiibtay bishii 8 sannadkii 1945. Halkaas ayuu ku soo dhammaaday dagaalkii ugu dhimashada badnaa taariikhda aadamaha. Dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ka tegey khasaare aan qiyaas lahayn. Dalal badan ayaa burburay, kuwa awoodda lahaa ayaa gebi ahaanba saaxadda laga saaray, wuxuuna galaaftay shucuub tiro badan oo gaarayay 100 milyan oo qof ku dhowaad. Waxaa dhacay tacdiyo aan taariikhda horay u soo marin. Keliya Sofiyeetka ayaa ku nafwaayey dad ku dhow 30 milyan oo qof, kuwaas oo ku dhintay hubkii la isku adeegsanayay, cudurro iyo gaajo, mana ka marneen tacdiga. Sidoo kale maamulka Hitler ayaa bulshooyin badan kula kacay xasuuqyo. Waxaa la sheegaa inuu xasuuqyadaas ku dilay 6 milyan oo Yuhuud ah. Serbiyaanka ayaa sidoo kale xasuuqay bulshada Muslimka ah ee degan dalka Yugoslafiya. Jabaan iyaduna dab yar ma shidin, waxay dhegta dhiigga u dareen 10 milyan oo qof, inta badan ahaa Shiinays iyo Kuuriyaan. Sofiyeetka ayaa isaguna si aargoosi daran u xasuuqay bulshooyinka Booliishka, Krowaatiyiinka iyo Roomaaniyaanka, kuwaas oo la safnaa Jarmalka. Dagaalkan ayaa dunida kaga tegay saamayn iyo musiibo ay ku adkaatay in laga soo kabto. Waxa uu noqday taariikh xanuun badan oo dalal badan ku reebtay uur ku taallo iyo xasuus mugdi ah. Dalalka ugu badan ee saamayntu gaartay waxay ahaayeen kuwa aan dagaalka qayb ka ahayn balse lagu dul dagaalamay, kuwaasi oo u badnaa waddamadii la gumaysanayay iyo dalalka taagta darnaa ee la qabsaday laguna qasbay inay dagaalka qasab ku soo galaan. Dagaalka kadib, xulafadii guulaysatay ayaa Jarmalka u kala qaybiyey 2 dal oo kala madax bannaan.
Jabaan waxaa la hoos geeyey Maraykanka halka Kuuriya ay ahayd dhul Jabaan xukumayay. Waxaa loo kala qaybiyey koonfurta oo hoos tegaysa Maraykanka iyo waqooyiga oo hoos tegaysa Ruushka. Awoodihii guulaystay ayaa sidoo kale dhisay ururka qaramada midoobay. Waxayna noqdeen xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka, kuwaas oo leh awoodda diidmada qaraarka loo yaqaan fiito. Ilaa maanta awooddan ayaa u suurtagelisa inay ku cadaadiyaan dunida inteeda kale diidmadan qayaxan, iyagoo leh awoodda maya aan laga weydiin su'aal. Waxayna kala yihiin dowladahaas Shiinaha, Ruushka, Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska.